kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub maamulka somalilan ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan ay helayaan aqoonsi caalami ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan oo ku sugan dalka maraykanka ayaa sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii ay heli lahaayeen aqoonsi caalami ah oo madax banaaniya oo dowlad madax bannaan ay noqon doonaan waxa uu sheegay in sanadkan aysan la dhaafaynin ictiraafka isagoo fariin adag u diray shacabka somalilan ee ku dhaqan gudaha iyo dibaddaba haddaba muxuu wasiirku u sababeeyey aqoonsiga uu sheegay in uusuu gabagaba taagan yahay islamarkaana sanadkan ay helayaan qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa waxaan qodobkeena labaad iyadana kusoo qaadan doonaa xukuumadda trump tan iyo intii dib loo doortay trump waxaa aada u soo badanayay in trump iyo xukuumaddiisu ay raadinayaan ama ay ku dhawaaqi doonaan aqoonsiga maamulka somalilan wargeysyo caalami iyo warbaahin caalami ah ayaa falanqeynaysa bilihii lasoo dhaafay aadna u hadalhaysay aqoonsigaasi iyadoo la sheegayay in xukuumadda trump ay jadwalka ama ay qorshaha ugu jirto in somalilan iyo deegaano kaleeto ama maamullo kaleeto caalamka ka mid ah oo aqoonsi aan helin uu ku dhawaaqi doono trump aqoonsigooda haddaba halkee ayay ku dambeysay arrintaasi iyadana waa soo qaadan doonaa dhinaca kaleeto ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli gaas ayaa loo magacaabay xil sare oo markaasi midowda africa haddaba xilkaasi loo magacaabaya cabdiweli gaas muxuu yahay halkee ayuu ka qabanaya yaase magacaabaya waa xil aada u sareeya dhowr iyo tobankii saac ee ugu dambeeyeyna warbaahinta caalamku ay siyaabo kala duwan ama midda africaba ay siyaabo kala duwan u qaadaadhigaysay haddaba xilkaasi cabdiweli gaas loo magacaabaya iyadana waa dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kaleeto mid iyo labo ka dul istaagi doonaa madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo wax laga weydiiyey in doorashada sanadka soo socda uu u tartami doono sida wada ogsoonnahayba ismaaciil cumar geelle wuxuu xilka uu qabtay ama uu markii ugu horreysay uu qabtay 1999 muddo 26 sano ah ayuu kursiga hayaa waa 77 jir sida taariikhda lagu sheegay ismaaciil cumar geelle waxaa wax laga weydiiyey doorashada soo socoto iyo mowqifkiisa iyadoo weliba dastuurka dalkaasi uusan qabin ama uusan u ogolaanaynin inuu mar kale uu istaago arrin la yaable ayuu ku dhawaaqay ismaaciil cumar geelle oo khalkhal amni darro ka abuuri karta gudaha dalka jabuuti mucaaradka iyo sidoo kaleeto shacabka reer jabuutina walaa xoogan ay ka muujinayaan haddaba arrintaasi maxay tahay iyadana waa dul istaagi doonaa iyo waxyaabaha uu ka yidhi doorashada soo socotaba soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina nugula wadaaga qeybta commentiga aynu ku bilowne maamulka somalilan ayaa shaaciyey in sanadkan ay helayaan aqoonsi caalami ah oo dowlad madax bannaan ay noqon doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ugu magacaaban cabdiraxmaan daahir aadan ayaa sheegay in sanadkan uu yahay mid rajadiisu sarreyso marka laga eego fursadaha ay somalilan ugu jirto in ay hesho aqoonsi caalami ah waa si wasiirku hadalka u dhigay wasiirku wuxuu si cad u muujiyey in kalsoonida uu qabo in dadaalada socda ee diblomaasiyadeed ay dhaxal keeni doonaan buu yidhi iyada oo markaasi la aqoonsan doono maamulka somalilan wuxuu hadalkiisa wasiirku sii raaciyey ictiraafku waa uu dhow yahay ama ictiraafku wuu dhow yahay oo mar dhow ayaa la ina ictiraafi doonaa sanadkan ayaa la ina ictiraafi doonaa oo ictiraafkii aynu heli doonaa arrintan ictiraafka iyo helidda madax banaani ama dowlad madax bannaan waxay ahayd mid soo socotay muddo badan 34 sano balse markii laga qiimeeyo arrimaha diblomaasiyadda isku haynta bulshada amniga markii dhinacyo badan laga qiimeeyo maalin ay somalilan ka xun tahay maanta ma jirto maalin somalilan ay ka xun tahay dhanka diblomaasiyadda caalamka dhanka waxa weeye amniga iyo isku xidhka bulshada gudaha somalilan markii laga cabiro maalin ay somalilan ka xun tahay ma aysan soo marin madaxda somalilanna waxay shacabka ku rajagelinayaan oo mar walba warbaahinta u taagan ka sheegayaan in sanadkan ictiraaf uu yahay oo ictiraafkii uu soo dhawaaday aqoonsi la helayo waxa weeye dowlad madax bannaan la noqonayo mar dhow lagu dhawaaqayo dowladda maraykanka ay aqoonsanayso oo ay ku dhawaaqayaan dhinacyo badan markii laga fiiriyo
arrimaha waayihii ugu dambeeyey aadka loo hadalhayay ahayd in Trump oo aqoonsanayo maamulka Somaliland oo dowlad madax banaan uu aqoonsanayo ma jirto wax isa soo tarayo oo ka ahayn xildhibaano cusuriyiina oo markaas xisbigaana ka tirsan oo ayagu markaas u hololeynayay in Somaliland ay hesho madax banaani xagga xukuumadda Trump oo waran hoose laga soo xigtay waxaa la sheegay in uu yaqaano Somaliland ay tahay region ka mid ah Soomaaliya wax ajenda oo uga yaala aqoonsina inuusan jirin halka madaxda maamulka Somaliland ay muddo badan ku soo celcelinayeen Trump bayna aqoonsanaya wada hadal baana dhaxmaray dowlad madax banaan baa noqonaynaa itiraafku waa soo gabagaboobaya mar dhow waa layna itiraafaya shacabow kaca shacabow isqabsada dhaqaale soo ururiya door fiican qaata waa si iyagu ay markaasi ay ku abaabulanayaan shacabka wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Daahir Aadan wuxuu ku sugan yahay dalka Mareykanka waayo dhaweydna waxa uu soo bandhigay sawirro run ahaantii fadeexad weyn uu kala kulmay oo markaas isagoo isku soo sawiray banaanka kore ee aqalka cad kana dhigaya markaa inuu ku sii socdo aqalka cad sida sawirada uu markaas ku soo qaaday ma uusan soo bandhigin cidda uu la kulmay halkuu kula kulmay midna ma uusan soo bandhigin waxaa kaliya la xaqiijiyay in banaanka kore ee dadka shacabka caadiga ay tagaan uu sawirro iskaga soo qaaday waxaa kaleeto iyadana fadeexad weyn uu kala kulmay qol ayuu isku soo xidhay kadibna qolkii oo calanka Somaliland uu dhex yaalo ayuu kolba dhinac u dhex qaadayay taasoo muujinaysa ama dad badan ay ku tilmaameen inay tahay qeyro mas'uulnimo iyo nin aysan markaasi ka muuqanin mas'uuliyad oo mas'uuliyad daro ayay shacabku inta badan ku tilmaameen markaad kommentiyada iyo dadka ka soo hadlayba qol keligiya oo qof kale la joogin ayuu isku soo xidhay arbo markaas intuu cameraman uu qaatay ayuu kolba dhinac u dhex qaadaya oo leeyahay aqalka caddaa ayaan dhex qaadaya oo waxaan u socdaa madaxweynaha taasoo iyadana aad iyo aad loogu fadeexadeeyay wasiirka si kastaba Somaliland weli waxay halgan ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd aqoonsi caalami ah iyadoo weliba caqabadaha taagana la iska indha tirayo dhanka saami qaybsiga dhanka amniga dhanka gobolada naftirkooda shuruudaha looga baahan yahay oo inta badan haddii la qiimeeyo aysan shuruud ahaan Somaliland buuxin karin inay noqdaan dal madax banaan waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho dhinaca kale haddii aynu eegno ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa la sheegay in midowda Afrika ay u magacaabayaan oo hadda ay gabagaba shaacin u kaliya ay dhiman tahay inuu noqdo ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan dib u heshiisiinta iyo u kurgelinta xaaladaha koonfurta amaandhahne Suudaanta koonfureed muddo badan xaalado adag baa ka taagan dagaalo sokeeyaa ka socda mucaarad iyo muxaafid ayaa isku haysta dagaaladooduna waxaad moodaa in ay marba marka ka dambaysa xaddaaf sii noqonayaan taasoo ugu dambeyn midowda Afrika ay rabaan inay dadaalo ay geliyaan si xal loogu helo waxaa la sheegay in Cabdiweli Cali Gaas loo magacaabayo ergeyga gaarka ee midowda Afrika u qaabilsan xaaladda Suudaanta koonfureed si markaasi xal loogu helo xiisadaha colaadeed iyo dhiigga daadanaya magacaadistiisa waxaa la sheegay inay soo gabagabowday oo Cabdiweli Cali Gaas la soo gabagabeeyey shaacin oo kaliya ay dhiman tahay sida ila wareedyo xogogaala lagu kalsoonaan karo ay noo xaqiijiyeen Cabdiweli Cali Gaas waa ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya ahna madaxweyne hore ee maamulka Puntland waa siyaasi rugcadaa ah aqoon-yahana professor ah jaamacado Mareykan iyo wadamo badan ba soo dhigayay oo jaamacado caalami ah wax ka soo dhigay ama macallin ka soo ahaa arday badan soo aflixiyay siyaasadda Afrika iyo waliba caalamkana aad iyo aad xogogaal ugu ah xeel dheere siyaasadeed weeye midowga Afrika sidaas awgeed ayay ugu doorteen in ergeyga gaarka u qaabilsan Suudaanta koonfureed uu noqdo Cabdiweli Cali Gaas ilaahay xilkaasi ku guuleeyo waa xil sare waa muwaadin Soomaaliyeed run ahaantii oo waliba siyaasadda Soomaaliya darajooyin sare ka soo gaaray inagana Soomaaliyaana sharaf ayay inoo tahay in xilkaasi aynu qabanno oo markaasi uu Cabdiweli Cali Gaas inugu matalo guuleyso ayaan leenahay dhinaca haddii aynu eegno Djibouti madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waraysi laga qaaday wax lagaga weydiiyey doorashada 2026
iyo waxa uga yaala inuu sharaxayo oo mar kale uu isku caana shubayo iyo in uusan isku sharaxayn iyadoo weliba dastuurka dalkaasi uusan u ogolaanaynin haddaan wax ka bedel lagu samaynin inuu mar kale Ismaaciil Cumar Geelle uu isa soo sharaxo. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu xilka qabtay 1999kii haddana 2025 ayaa lagu jiraa markaad kala goyso 26 sano ayuu kursiga ku fadhiyaa. sanadkan soo socda ayay doorashada Jabuuti dhici doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ismaaciil Cumar Geelle waa siyaasi weyn muddo badan xilka soo hayay isku soo caleema shubayay 26 sanana kursiga ku soo fadhiyay 77 jir weeye khabiir ah balse dastuurka dalka Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti ba waxa ay aad ugu hilowsan yihiin isbedel siyaasadeed inuu dalka ka dhaco oo la helo siyaasad ka duwan siyaasadii hore ama shakhsi ka duwan shakhsigii hore 26 sano la soo dhaafay dalka hogaaminayay. Ismaaciil Cumar Geelle waxa wax laga weydiiyay maxaa ku qorshaysan waa uu ka gaabsaday waxa uu ku soo gabagabeeyay inuu waxa weeye uu yiri dalkayda waan jecelahay inqilaab inaan galiyo ma doonayo in khilaaf uu ka dhaco dooni maayo shacabkayda inay kala qaybsamaan ma rabo ma rabi in dalkayda uu waxa weeye cadow u gacan galo in dalkayda uu khilaaf siyaasadeed mid dastuuriya uu ka dhaco ma doonayo in dalkaydu uu dhiig ku daato shacabkaydana ay kala qaybsamaan. inta ayuu ku soo gabagabeeyay isagoo ka leexanaya su'aashii la weydiiyay oo ahayd ma is sharaxaysaa oo ma tartami doontaa doorashada soo socota. waxay dad badan arrintaasi ku micneeyeen Ismaaciil Cumar Geelle inuu doonayo 2026 inuu isku caleema saaro ama is caleema saaro oo shan kale uu qaato. arrintaana ay tahay sababta uu uga aamusan yahay iyadoo dastuurka dalkaana uusan ogolayn laakiin aad iyo aad looga shaki qabo inuu doonayo in wax ka bedel uu ku sameeyo. doorashooyinka dalka Jabuuti iyo shacabka iyo mucaaradba ama siyaasiyiinta danaynaya siyaasadda dalkaaba waxay aad iyo aad ugu cadaadinayaan Ismaaciil Cumar Geelle inuu meesha ka baxo maadaama uusan dastuurku u ogolayn in mar kale uusan soo sharaxo si markaasi loo helo doorasho lagu tartamo oo xor iyo xalaala oo aan u qabsoomin sidii 26 sano la soo dhaafay doorashada Jabuuti ay u qabsoomi jirtay. waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muqalladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa anigoo Santaaga